haddii aad YouTube channel bilaabaysid ama aad YouTube channel leedahay oo aad doonaysid inaad horumar gaarsiisid, 7 qodob ee maanta aan ka hadli doono iska ilaali. aad bay muhiim u tahay inaad iska ilaalisid. marka aan 7 qodob ka hadlaayo, 7 qodob waa qodobo cashir ahaan aniga ii soo maray oo aniga aan wax ka bartay muddadii aan kusoo guda jiray YouTube-kayga aan soo hagaaji muddadii aan YouTube-kayga soo waday. sidiisaba qofka waxa fiican marka uu khaladaad badan sameeyo ama uu la kulmo waxyaalo life experience inuu dadka u faa'iideeyo. waxaan rabaa marka dhalinyarada maanta doonaya inay YouTube bilaabaan. YouTube-kayga waxaan bilaabay 2018 bartamihiisii. taas oo cashirada ugu badnaa ee aan soo geliya aan bilaabay inaan soo geliya 2018 19 20 haddana waxaa lagu jiraa 21 lagu jiraa. dabcan muddo dheer ayaan soo waday. muddadaasi YouTube-ka aan soo waday qaladaadkii aan la kulmay haddii aan idhaahdo waan ka sheekeynaa ama wixii aan wax ka bartay cashirka ii noqoto aad bay u badan tahay, laakiin qayb yaroo kamid ayaan maanta idinla wadaagaa, weliba gaar ahaan dadka dhalinyarada ee doonaya iminka inay YouTube channel bilaabaan. qodobadan waa muhiim, waa lagama maarmaan. qodobka ugu horeyso, iska ilaali in YouTube channelkaada aad iska furatid. waa la furtaa aad u furatid adiga oo aan hadaf u sameynin, yool aan u sameynin, ujeedo aan u sameynin, himilo iyo sabab aad u samayso aysan jirin, wax aad hiigsanayso aysan jirin. why haddii aad lahayn why, af English waxaa lagu dhahaa why, af Soomaali waxaa waay sabab aad u sameynayso YouTube-kan haddii aysan jirin oo aysan kuu muuqanin, ma sii wadi kartid YouTube channel, waad iska hilmaamaysaa. xaalad adag ayaa kusoo marayso mararka qaar oo aadan ka bixi karin inaad video diyaarisid, aad soo raadisid cashiro, waxaad ka hadashid, aad diyaarisid, aad duubtid, aad edit garaysid, aad soo gelisid. mararka qaar ayay kuga adkaan doontaa. mararka qaar dad waxaad la kulmaysaa negative ah, videoyada aad soo geliso comment negative badan ka bixiyo, isla markaana aad niyajabtay. waxaa la rabaa marka waxyaalaha ku foos gareynaya, wayda ku foos gareynayso, haddii aad xanuunsan tahay ku foos gareynayso, haddii aad caafimaad, haddii aad caajist ku foos gareynayso, haddii aad is leedahay ama aad ka carooto ama aad waxaad rabtay aad ka weysid, ku foos gareynaysa hadaadan haysanaha isku bilaabin YouTube channel. waa inaad leedahay hadaf cad ee kuu muuqda ee habeen iyo maalin aan hortaada ka leexanayn ilaa aad gaartid mooyaane. tusaale hadafkaas wuxuu noqon karaa YouTube channelkayga waxaan rabaa inaan gaarsiiyo 50 milyan oo subscribe ah. 50 milyan oo subscribe YouTube-kaada markuu gaaro, maxaad u malaynaysaa intee lacagaad ka sameyn kartaa? 1 milyan oo subscribe ah haddii aad $2,000 ka samaysid, kaba soo qaadba. hadafkaada waa inuu yahay wax cad marka aad YouTube sameynaysid. qodobka labaad oo isagana muhiimka waxa weeyaan, ha ka dhigan YouTube channelkaaga mid lacag in aad ka hesho kali aad u furatay. haddii hadafkaada uu yahay YouTube channelka lacag ka samee maxay ahayd $50 bishii ka samee, $100 bishii ka samee, beri lacag ka samee, bilaha soo socda lacag ka samee, waad maxay ku khasaari doontaa, waadna iska dhaafi doontaa, hadhow ma sii wadaysid. sidaa darteeda ha u sameyna YouTube inaad lacag ka samaysid, laakiin u samee YouTube-ka inuu kuu noqdo mustaqbalkaada long terms vision inaad lahaatid. haddii YouTube-kaada 5 sano soo socda aad gaarsiisid 5 milyan oo daawadayaal, kaba soo qaadba, ama 2 milyan oo daawadayaal haddii aad gaarsiisid, waxaa xaqiiqan aad lacag badan ka sameynaysid. laakiin inaad 2 milyan oo daawadayaal gaarsiisid waxay u baahan tahay juhdi iyo shaqo badan. sidaa darteed ha ishordhigin lacagta markiiba aad ka sameyn lahayd, laakiin ishordhig in YouTube channelkan hadaf ka weyn lacag aad la leedahay. lacag wax kasta lagu iibsan karaa, lacag waxay sheegaysa malaha, laakiin waxa fiican hadafka iyo mustaqbalka YouTube-ka aad ka leedahay iyo dadka wax kaa baran doona, waxa adiga kugu jiro, aqoonta adiga aad leedahay aad uga faa'iideyn doonto inaad ka fikirto. laakiin lacag aadan ka fikirin, lacagtu way iska imaan doontaa. qodobka saddexaad ee muhiim ah ee lagama maarmaanka ah haddii aad doonayso inaad YouTube furatid waxa weeyaan, ka ilaali YouTube channelkaada in aad hakad gelisid ilaa xaalad adag ay ku qabsato mooyaane. haddii YouTube channel aad bilowdid oo YouTube channelkaada aad qorshaha u samayso oo aad tiraahdid maalin kasta oo jimco ah waxaan soo gelinayaa hal video, taas oo micnaheeda tahay isbuuc kasta hal video ayaan soo gelinayaa. qorshahaasi aad samaysay marnaba ha ka istaagin, ku socodsii isbuucii hal maalin inaad soo gelisid, in xaalad adag ay ku dhacdo mooyaane, inaad xanuunsan tahay,
in aad umushay oo gabar aad umushay maalmaha umushi aad soo gelin kari weysay in maxay ahayd xaalad adag ay ku qabsatay ama safar dheer aad gashay oo aad weysay internetka iyo wixii aad kusoo gelin weysay mooyaan marnaba isbuuci mar yuusan ku dhaafin haddii lacala uu ku dhaafo isbuuc 2 isbuuc ay isku tagto isbuuc saddexaad yuusan ku dhaafin haddii lacala 3 isbuuc uu ku dhaafay isbuuc afraad yuusan ku dhaafin sababta isbuuc afraad hadduu ku dhaafo bil ayay noqonaysaa mar haddii youtube-kaada bil aad ka maqan tahay daawadayaashaadii macaamiishaadii dadkii kugu xirnaa dadkii kaa faa'iidaysan jiray ma helayaan hadhow dib dambe haddii aad wax usoo gelisto waxaa loo baahan yahay markaa inaad joogto ka dhigtid haddii aad maalin kasta soo gelinayso qorshahaada uu kuu saamaxay inaad every morning ama every day maalin soo geliso sidoo kale ha joojinin maalin kasta wax soo geli u qorshee waxa aad soo gelin lahayd maalmaha soo socda hakashada youtube-ka waxay ku keentaa dhaawac weyn ee dhaqso usan kasoo kabsan qodobka afraad ee lagama maarmaanka haddii youtube aad bilaabaysa isagana waxaa weeyaan youtube janaalkaada ka ilaali in aad ka dhigtid mid xamaasad ku shaqeeyo sida in viewska iyo subscribe-ka aad isku xirtid like iyo subscribe inaad isku xirtid oo haddii youtube-kaada ama video aad soo dhigta like la saari waayo ama subscribe la saari waayo inaadan farxin haddii like badan iyo subscribe badan uu ku helna aad farxdid waxaasoo dhan waxaad noqotaa careless ka noqo haddii subscribe lagu saaro comment laga soo bixiyo oo dadka ay kasoo bixiyaan u mahad celi maasha Allah shaqo fiican ay qabteen marka aad youtube-ka ama markaad video duubaysana dadka u sheeg dadkoo dhan ma aha wax garad Soomaalida waxay tiraahdaa dadka qofna garasho ayuu leeyahay qofna garacasho ayuu leeyahay oo micnaheeda ah qofna garasho ayuu leeyahay youtube-ka videogan aad soo gelisay inuu qiimo kuugu fadhiyo ayuu ogyahay marka uu daawada wuxuu kuu saarayaa like comment ayuu ka qayb qaadanaya haddii subscribe uu ahna subscribe uu saaraya qofna garasho malaha garacasho leeyahay oo ilaa aad tiraahdid haddii videogan aad ka heshay oo aad janaalka cusubta subscribe dheh haddii sidoo kale videogan aad ka heshay oo hore aad subscribe u heedan like saar haddii su'aalo aad qabtid dhinaca commentiga ama ra'yi nugula wada markaas ayay ku baraarugaan dadka garacashada leh marka taas waajibaad adiga ku saaran waaye dadka inaad u sheegtid videogan inay haddii ay ka helan ay ku saaraan like haddii ay hore u aheen subscribe-na ay subscribe ku siiyaan laakiin ka waran haddii meel kasto aad gasho aad dhahda ilaahay dartiisa igu siiyo ilaahay idinku dhaarshiyo igu siiyo subscribe-ta lagu siiyey iyo waxaas waxba kuuma taray waxaad adiga shaqaysatay dadkaadi daawadayaashaada ay ku garteen marka ay arkeen inaad tahay qof daacad ah marka aad tahay qof iyaga wax la jecel ayaa adiga ku anfacaya sababtoo haddii maanta lagu dhaho 1000 subscribe lagu siinaya laakiin cid ku daawanaysa mala sababtoo wax la daawada ma aadan soo dhigin wax dadka wax tar u leh ma aadan soo dhigin micnaheedu waxa way xamaasadaasi waxba kuuma sheegaysa ha isku xirin subscribe-ka haddii lagu subscribe gareeyo dadka u mahad celi haddii ay like ku saaraan u mahad celi qaybta commentiga haddii kasoo qayb qaataan u mahad celi dadka aan garashada laheena markasta oo videoga aad duubtid u sheeg in aad u baahan tahay youtube-ka ama waajibaadka ka saaran ama xuquuqda uu leeyahay videoga ay tahay inay subscribe dhahaan youtube-ka haddii ay ka helaan like ay dhahaan oo ay sii share garayaan taas markaa waa inaad iska ilaalisid inaad marna niyad jabtid oo marna aad faraxdid oo aad isku xirtid xamaasad ahaan videoyada aad soo dhigta iyo dadka reactionka ay ka bixiyaan qodobka shanaad waa isagana qodob muhiim ah haddii aad youtube channel bilaabaysid waxaa waaye ha ka dhigin youtube channelkaada mid adiga keliya aad faa'iido ka raadisid ama faa'iido aad ka heshid waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo raadinaya inay helaan subscribe inay helaan maxay ahayd views inay helaan oo haddana wax bulshada waxtar aan u lahayn soo dhigaya oo sida ah inay siyaasad iyo dood soo dhigaan wax aan loo joogin iyo in qabiil iyo reehbel lagu aflagaadeeyo in maxay ahayd waxyaalo aan maxay ilaahay xaqiisa ku fiicneen oo dambi ah la soo dhigo iyo waxaan dee hal iyo laba aan ahayn oo waxtar aan lahayn taas marka adigu waxba kuma helisid haddii gabaray aad adiga isa soo qaawisid iyo haddii aad dhar soo xiratid iyo haddii aad siyaasad halkaa lasoo firisid iyo haddii aad cid caydid waxaasoo dhan macnaha waxa micno leh ma samaynayso waxaa la rabaa dadka adiga targetka ku ah qof kasta markuu youtube samaysanayo wuxuu leeyahay waxa muhiim inuu target samaysto oo ah adiga ya target ku ah haddii ay gabdhaha target ku yihiin waa inaad gabdhaha sida ugu wanaagsan ee noloshooda ugu guuleysan karaan aad kula talisid oo cashiro aad usoo diyaarisid
haddii hooyooyinka iyo sida caruurta loo barbaariyo youtube-kaada uu yahay waa inaad targetkaada ama dadkaada bartilmaameedka ku ah wax iyaga wax u taraya inaad heshid. haddii dhalinyarada aad target ay ku yihiin waa inaad wax dhalinyarada waxtar u leh waqtigaas socdo qarnigaas laga faa'iideysan karo waa inaad soo gelisid oo wax lagaa bartaa. laakiin haddii maalinba aad meel aadid target aadan lahayn meel aad u socoto aadan lahayn dadka aysan wax kaa faa'iideyn waa lagaa kala tagaa cid ku daawanaysa malaha viewsna ma helaysid subscribe-na ma helaysid youtube-kaadan horumar ma gaara. waxaad ogaataan dhalinyarooy youtube-ka waa business-kana waxaa muhiim ah marka aad dhisaysid inaad ku dhistid long term vision markaan leeyahay waa hadaf ama aragti fog oo ganacsi inaad ka dhigtid. youtube-kaada 5 sano soo socda dhaqaalihii uu soo saari lahaa inaad ogaatid inaad dhaqaale adiga aad leedahay oo aad shaqaysato uu yahay. qodobka 6 waxa weeyaan ha ilaabin in ay daawadayaashaada muuqaalada daawanaya ama muuqaalada soo dhigta daawanaya ay ku jiraan dad badan oo adiga ku neceb. sidoo kale ha ilaabin inay ku jiraan dad badan oo adiga ku jecel oo waxyaalaha aad ka hadasho aad u xiiseeyo shakhsiyad ahaan iyo qof ahaan iyo sida aadaabtaada akhlaaqdaada ay tahay ka helo oo jecel inay ku jiraan iyo waliba dad si gaar ah adiga ku jecel inay ku jiraan. haddii gabar aad tahay waxaa laga yaabaa qof ku jecel oo hadaladaada ama muuqaaladaada marka uu daawado farxad dareemaya inuu ku jiro. waxaa laga yaabaa qof ku neceb oo aanba kaa helin codkaada ka helin marka muuqaaladaada uu arko ku karaahsada inuu ku jiro. adi marka waxaa lagaa rabaa labadaas qof waad u dhexaysaa sababta labadaba waa macaamiishaada oo dadka ku daawada adiga waxaad soo dhigta daawada. sidaa darteed waa isku si inaad wanaajisid labadaba kan ku neceb inaad wanaajisid oo haddii lacala commentiga uu ka qayb qaata hate waxyaala neceb uu kuu soo dhigo in aadan wax badan u arkin aadan dareemin inuu qofkaasi waxun sameeyey ee aad kasoo qaada walaalkaa oo qaldamay adigaba haddii aad qaldami lahayd ka waran oo qaladkaada lagugu dul qaadan lahaa. waa inaad meesha qofkaas uu joogo meesha adiga aad joogto qofkaas aad dhigtaa halka qofkaas adiga aad joogto waa inaad dhigtaa because haddii aad qaldanto waxaad u baahnaan lahayd in qaladkaada maxay aheeday iyo waxyaalihii aad geysatay ama qaladaadka aad geysatay lagu cafiyo. sidoo kale qofkaas iska cafi haddii qofka qof wanaagsan ama dad aad wanaagsan oo maasha allah oo jecel horumarkaas waxaad ka sheekeynaysa ku mahad celinayo isla markaana comment fiican ka bixinayo kugu dhiirigelinayo haddaa heshana iyagana sidoo kale u mahad celi soo dhaweey sababtoo ah waxaad helaysaa markaasi inaad noqotid qof balance ah oo dadka oo dhan u dhexeeyo. dadkan waxaad ogaataa youtube-kaada daawanayo oo iyaga wax kaa faa'iidayo adigana sidoo kale inay yihiin hantidaada in ay yihiin hantidaada oo adiga aad kasbatay sababtoo waxyaalaha adiga aad soo dhigtay ama aad soo diyaarisay ama cashrada aad bixiso ayay dadkaasi ka faa'iidaan. maadaama ay ka faa'iidayaan sidoo kale adiga dadkaasi waxay ku yihiin hanti asad ayay ku yihiin. wax hanti laga dhigta adduunka waxaa uga fiican dad asad dad ayaa laga dhigtaa uga fiican sababtoo dad haddaad haysid daawadayaal ah dad haddaad haysid taageerayaal ah waxaad u baahan tahay ma jirto ilaahay ka sokow. sidaa darteed qaybtan aad bay muhiim u tahay in aad ogaatid dadka ku neceb iyo dadka ku jecel labadaba inaad ula dhaqantid si wanaagsan oo farxad iyo soo dhaweyn iyo cafin ay ku dheehan tahay inaad ula dhaqantid. qodobka ugu dambeeya isla markaana qodob aad muhiim u ah ee haddii youtube channel aad furanaysa ama aad leedahay lagama maarmaana inaad fahantid waxa weeyaan ka ilaali youtube channelkaada maseerka. waxaa jira maseer la yiraahdo maseerka ganacsiga kaas oo marka aad aragtid dad youtube ley ah oo sidaadoo kale oo ganacsi youtube ku jiro oo heer gaaray ama intaasoo daawadayaal haystaan million subscribe haystaan markaad aragtid markiiba qaybta dareenka ama maseerka wuxuu ku leeyahay dadkaas ayuu xumaantooda ku tusayaa sababtoo wuu ka maseerayaa. markuu ku tuso markiiba iska ilaali la dagaalan in uu ku daaro ama ku saameeyo ama enerjiga aad haysatay uu kaa daciifiyo ama hidadiilada iyo hadafka aad lahayd inuu kaa daciifiyo maseerka isbarbardhiga dadka kale isbarbardhigaysid ama youtube-yada kale isbarbardhigaysid. dadka wax badan ay ku kala duwan yihiin qofkan wax walbaad ku kala duwantihiin wax qofkan ula imaado wax ka duwan la imo si adigana aad u gaartid heerka aad rabtid iyo meeshu asaga gaari email ka sareysaba. marka sidaa darteed maseerka ganacsiga waxaa la dhahaa waa maseerada ugu xanuunka badan eena cudurka ah. marka iska ilaali lacala haddii aad maseertan u maseer adiga oo qofka walaalka maasha allah dhahayo oo horumar ayuu gaaray. haddii lacala aad aragtid youtube-ka xalwo oo dhowr kun oo subscribe haysto adigana aadan hal subscribe ama 2 subscribe haysanin macnaha ma aha xalwo inay meesha ay maanta taagan tahay ka bilowday
waqtiyo badan oo adiga meesha joogta ka daran ee soo martay sida darteed waa inaad ogaataa qofka meesha gaar heerka gaar shaqo uu kasoo shaqeeyay iyo samar uu soo samray iyo sidaan kuu sheegay dhibaatooyin badan uu xanuun uu usoo maray wax uu ka bartay ee ku gaaray sidaa darteed adiga waxaa lagaa rabaa marka in aad qodob inaad raacdid waay daadi inaad raacdid sabab inaad horumar ku gaartid sabab aad u rabtid haddii marka waxa aad aragtid dhinac wanaagsan aad ka eegtid wax kasta oo kusoo mara everything oo kusoo mara dhinac wanaagsan aad ka eegtid horumar iyo guul ayaad ku tilaabsanaysaa YouTube channel haddii aad furinayso waa sidaas oo kale mar kale haddii aan ku celiyo dhalinyarooy YouTube channel haddii aad furinaysaan ha ilaabina YouTube channel waa businessyada online-ka ama digital businessku ka mid yahay waxa uuna u baahan yahay sida businessyada kale loo ilaaliyo si ka badan in loo ilaaliyo oo la maalgeliyo maalgelinta aad maalgelinayso maxaa ka mid ah maalgelinta waxaa ka mid ah in aad bishii u qorsheyso lacag aad gelisid oo ah sida fideoyada aad duubaysid camera haddii aad haysid camerada aad isticmaalaysid internetka aad isticmaalaysid oo isagana koronto ah YouTube maxay tale computerkii aad isticmaalaysid waxaas oo dhan waa inaad qarash gelisaa haddii aadan gelinin YouTube horumarka ma gaaraysid sidaa darteed haddii aad haysanin camera qasab ma inaad haysan anigu hadda camera kuma duubo fideoyadan aan soo diyaariyaad aragteen camera ma isticmaala marna teleefonkeygaan isticmaala inta kaloo badanna codka inta aan duubo ayaan fideoya badan aan soo geliyaa oo kala duwan fideoyadaasi oo waliba qaar iyaga kamid aan soo iibiyo ayaan geliyaa sidoo kale programka aan isticmaalo ee wax aan ku duubo ee wax aan ku jarjaro qoraalka aan ku saaro codkii iyo fideoyada aan isku saaro dhan lacag ayaan bixiyaa waa maalgelinta ayuu kamid yahay computerka aan isticmaalo oo programkaas igu degsan yahay waa computer aan ugu talagalay oon u diyaariyay macnaha ma aha in aan hadda marka lacag ka helay macnaha inta sanadaas aan soo weeday inaan lacag ka helay ma aha kuma fikiray laakiin waxaan ku fikiray business inuu ii noqdo mustaqbal ah hadda dabcan laba YouTube ila 3 YouTube ayaan hadda haya inkastoo laba aniga aan leeyahay kuwa kale aan gacanta ku hayo haddana wali inaan maalgeliyo ayaan ku sii wadaa oo calaashan xitaa haddii ay wax soo saaraan wixii ay soo saareen in iyaga ku celiyo marka waxaan idin leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed YouTube waa business waa ganacsi laakiin maanta iyo bari lacag kama sameynaysid waa in sanadka ugu horeey 12 bilood ugu horeysa aad xoog gelisid waqti aad gelisid kharash aad gelisid kadibna aadan joojinin waxaad gelisid aad sii laba jibaartid si qarash uu kugu sameeyo laga yaabo 2 sano kadib laga yaabo sanad kadib inuu lacag ku bilaabo laakiin lacagtaas waxay ku xiran tahay hadba sida aad fiidiyoyada dadka ay daawadaan aad u soo gelisid iyo dadkaas aad ula dhaqantid tusaale ahaan qaybta commentiga markaad inkastoo anigu runtii aan waqti badan haynin laakiin markaad hoos u degtid qaybta hoose ee commentiga waad aragteen fiidiyowga qofka markuu comment ka soo bixi inta badan waxaan u saaraa love calashan love waxaan ugu saarayo waxa way hadii aan iraahdo qof ayaan u qoraya waqti badan ay igu qaadanaysaa ana waqti badan uma hay marka love waxaan ugu saaray waxa way inaan kalsooni iyo jecel inaan tuso dadka ku xiran YouTube-keyga in ay yihiin dad maxay aan jeclahay runtii hantidayda ay kamid yihiin inaan tuso ayaan jeclahay hadii laakiin ay jiraan cid maxay commentiga igu soo qorto comment jawaabo ama su'aalo igu soo qorto aan ka jawaabo waa ka raali gelinaya marka aan helo emailka ugu horeeya ama aan dib u baaro fiidiyoyada aan soo galiyay ee aan arko waan inta badan waan ka soo jawaabay hadii aan kaaga soo jawaabino waa ka raali gelinaya waxaan rajaynaa marka ugu horeyso ee aan furo inaan ka soo jawaabo dhammaan daawadayaasha ku xiran janaalkayga runtii aad ayaan idin jeclahay waxaan idin leeyahay hadii aad cusub tahay ee markii kuugu horeysay aad soo booqatay janaalkayga soo dhawow subscribe dheh si aad u hesho casharada aan soo dhigo sidoo kale hadii aad kamid tahay asxaabtii ku xirneed ee hore u daawan jirta subscribe ka ah isla markaana fiidiyowgan aad ka hesho like saar si share garee hadii aad fikrad igu kordhinayso ama aad su'aal qabtid ama aad doonayso inaad ila wadaagtid qoraal qaybta hoose ee commentiga igu reeb aan rajaynayaa inaad fiidiyowgan ugu yana wax ka barateen waxaan idin leeyahay ama aan idin kaga tagaya tan iyo intaan ku kulmi doono fiidiyow kala mid aan soo gali waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh